بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى درس وحو كساب سيسيهي مشكلة الأمن الغذائي للأمة. نبتا كساب سيسن isku filaanshiyaha cunnada waan jirin. alasl waxaynu naqaanaa cunnadu inay tahay ghariisa min gharaa'is alinsaan, ama waxyaabaha bini aadamka ilaahay uu ku abuuray, baahiyaha alle subxaanahu wa tacaala waa aadanaha ku abuuray, waana sabab ka mida sababaha ugu weynee biqaa'u ljinsi albashari, in aadanuhu noolaado. إلهنا قرآن كوحو كنت المامية وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. إلهي مركو المامية أنبياء وحل يري كما نيلين جسد آن عنعن، يعني عدوى لبين عنع باهن تبا إلهي المامية آذانها كمدة غذاقو الكاسو تشوغا أمنيقونا دوا النعموين كوجوا وين وهي عكس يصاب بقائه ودباتوين كوجوا وين الدنيا كدعة بل آخرة كدعة. وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمرك الجنة ضلت المامية ادخلوها بسلام آمنين بلت المامية حوالي يحنو ملين يا دوري الطوال ما يرد بقرآن كصار أرتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهي المامية سيدا أوجد qur-aanku waxa uu inooga warramayaa ahmiyada ay shucuubta iyo bini aadamka u leedahay cunnadu, bale wuxuu isku xidhayaa amniga iyo nabadda ummadi ay haysato iyo istiqraarka siyaasiga waxaa la yidhahdaa deganaanshiyaha siyaasadeed ee ummadi leedahay iyabuu isku xidhayaa iyo cunnada. walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش مركي إلى يوم النشي جنيي وعن رب إليه عابدان ربك سبحانه وتعالى بيت كان له كاسو الذي أطعمهم من جوع قاتشك قوديي وآمنهم من خوف عبسنة كنبت قليي. sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyana may ihmaalin qadiyadda tani si xooggan bay u tilmaamtay oo alxayaati alaamina almustaqira, nolosha deggan, wuxuu xadiisku ku tilmaamayaa inay saddex rukun leedahay. saddexda rukun ee nolosha deggani inay ka mid yihiin buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam من أصبح منكم اليوم آمنا في سربه معافا في جسده أو في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث كإمام الترمذي ورنا يا علماء الصحيحة كنت المامين وحنا بقول عليه الصلاة والسلام قفك هو يجيسه أما التلكي أما قريسي أما قوم كيسة دحشوغة isagoo nabad qaba, nabad haysto aan cabsi jirin, jir ahaanna caafimaad qaba, maalintaa wuxuu cunana haystaa. yacni qofkani nabad buu haystaa, nabaddii guud ahaaneed oo cabsan maayo, jir ahaanna nabad kaluu haystaa oo uu caafimaad qaba, bale sheegan maayo iyo xanuuntoona. maalintaana wuxuu cuno ayuu haystaa, kaa adduunka ku soo ururay buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam.
haddaba mas'aladan ay yidhaahdaan mafhuum alamni alqawmi waxaynu nidhi amnigu guud ahaan waa qofku inaanu dareemin cabsi hadaaguna waa waxuu qofka bini aadamku quuto oo uu enerjiga iyo tamartiisa ka helo mafhuumin amni alghadaa'i markaynu idhaahna markaa waxa weeyaan qofku inuu helo cunnadii uu u baahnaa tayo iyo tiraba inuu ka haysto wixii nolosha daruuriga u noqon lahaa ama isku filaanshiiya inuu halkaasi ka joogo ama baahida bini aadamkee dabiiciga ah ee raashin ku saabsiisan inaanu warwar ka haynin waxay yidhahdaan rakaa'ista tiirarka ay ku tiirsantahay waa saddex bay yidhaahdaan wafrat alghadaa hadadu mid la heli karo cunnadu mid la heli kara inay tahy waanay macduum ahayn ka labaadna waxay yidhahdaan waa alqudra shiraa'iya dadku inay iibsan karaan oo ha la helo cunnadiiyo waa gobolka ama dhulka ha taalle inay dadku awood u haystaan inay gadan karaana iyo inay mustamirto istimraariya inay haysato oo la rajaynayo cabsi aan laga qabin berri ama bisha dambe ama sanadka dambe in la waayayo inaan cabsi laga qabin haadihi rakaa'is athalaatha bay yidhaahdaan waa rakaa'ista alamni alghidaa'i lilumma haddaba cunnadu nabadda qabta waayo bini aadamka maanta jooga xanuunnada qaarna waxay dhahaan tacafun buu ka yimaadaa poison jidhka gala ama bakteeriyaad iyo viruses iyo wax gala inta badan xanuunnada waa la daweyn karaa bay yidhaahdaan xanuunnada badhna wuxuu ka yimaadaa bay yidhahdaan amraad alistiqlaabiya kuwa yidhaahdaan cunnadaa keena waa xanuunnada musminka ee iminka dunida inta badan loo taaglaayay oo wadna xanuunnada iyo dhiigkarrada iyo macaanka iyo maxaa la yidhahaa dhagxantan beerka gasha iyo kuwan gala maraarada iyo waxa la sheegaya tirada badan la xanuuna iyaga cunnaa samaysa yacni quality-ga cunnada iyo noocay tahay ayaa sababe maaha wax kaloo debadkaaga yimi idan in la helo cunno caafimaad qabta iyo awooddii lagu gadan lahaa iyo istimraariyadeeda in la hela rakaa'isu ah baynu nidhi haddaba dunida gaajada ka jirtaa ma qilatulmawaarid baa ma dunida waxa kor yaalla quudka ah baana aadanaha ku fillayn mise waa suu'u tawsiic bini aadamku siduu wax u qaybsadaan cadaalad ku sugnayn labada waa yama alasna waxaynu leenahay dunida waxa kor saarinee aadanaha uu ku filan yahay inkastoo aynu ognahay aragtidii wadaadkii ingiriis ee raahibka ahaa ee dad badan oona ay daba socdaan robert malthus markii lahaa dadkaa tiro badanayo dadku si handasiya ayuu tiro badanayaa yacni kow labado afartu saasuu u badanayaa tilmaamayey oo le mawaariduna maba kordhayso markaa wuxuu leeyahay dunida waxay yaallaan dadka ku fillayne aragtiyihiisu aragtiyo cunsuriyo ah dadka badha laga takhallusin weeyaan markaan si kooban u tilmaamo aadanaha dunida ku nool markaa wuxuu arkayaa kawaarista balaayooyinka iyo dagaalada iyo waxa mashaakil dunida ka jira iyo gaajada iyo waxa kani inay tahay naxariis rabbi oo xagga rabbi uga timi ama naxariis bini aadamku isu naxariisto badh laga takhallusay sida inta kale u noolaato asalku saakiin wuxuu yahay saa qur-aanku tilmaamayo wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi dhulka kan ilaahay baa barakeeyey barakadu waa maxay khayr badan baa dul saaran weeyaan waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala quudkeeda noolaha kor saarane wixii uu cuni lahaana ilaahay baa ku jaangooyey rabbi saasuu qur-aanka ku sheegay walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliilan maa tashkuruun ilaahay wuxuu leeyahy dhulka ayaanu idin makan siinay wajacalnaa lakum fiiha macaayish jamcu maciisha waxa ku noolaan lahaydeenna waa idin dul saaray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee intaa mahadnaqaysaan baa yar wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha
dunida wax daabada wax socdo korkiisa joogaa ma jiro ilaa ya ilaahay baa isku laazimiyay arsaaqdeedu way taallaa walidaalika waxaan leenahay xataa aqoomaha bini aadamku maalan haddaynu ra'yiga maaltoos tilmaamnay bal kuwa ka gedisan ra'yigoodana wax ka tilmaamno الأزمة الغذائية في العالم والوطن العربي نيكا قري محمد خليفة waxa uu soo naqlinayaa dhulka buu leeyahay inuu ku noolay masaaxadiisu yaabisada inta engegani waa 13.2 bilyan oo hektar inta yaabisada ahi inta nus ka midi qaabil lizaraaca maaha that means 6 point something ayaa ah waxa qaabil lizaraaca wax laga beeri karaa inta qaabilka lizaraaca ahna rubuc ka midi bal rubuc wax ka yara dhaafsiisan 25.7% boqolkiiba 25.7 ahina waa dhul daaqsimeed buu yidhi inta soo hadhay dhulka oo rubuc markaas wax dhimana waxa hadda la beeraa waa 43.5%. waa boqolkiiba 43.5 rubicii intaasaa laga beeray saa daraaddeed waxay leeyihiin dhul badan oo la beeran karaa weli baylaha kaasi waa mid culamo kale oo ka mid ah culamada aqoon-yahanada qaar ka mid ah waxay qabaan dhulka aynu ku noolahay xawaalay 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa bay leeyihiin 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa waliba waa marka la eego bay yiraahdaan mustawaha nolosha maraykanka cidii uun aragtay wax walba saddex laab bay ka cunaan wax kastoo bini aadam liqo yani koobka sharaabka lagu cabaa waa mid yar mid dhexe iyo mid weyn dadku ka waaweyn u bay cabaan mid intan la leeg marka wax walba waa koob inta leeg haddii lagu eego bay yiraahdeen mustawaha Jabaaniska dad cunno badan maaha mustawaha Jabaaniska haddii lagu eego bay yiraahdeenna 107 bilyan oo bini aadam quudin karaa dhulka waxa kor saaran bay leeyihiin yani iyaga aragtidooda waxa weeyaan sida Mareykanka haddaynu boobnana buu leeyahay oo qofkii Mareykanba 3.3 Jabaanis u dhigmaa saddex qof iyo waliba dheeraad Jabaanis intay cunaan ayuu cunaa weeyaan haddaynu sida Jabaaniska bini aadamka u quudinana 107 bilyan iminka 7 baa la sheegaya Soomaha bilyan dunida inay kor saaran yihiin intaas uu quudin karaa bay leeyihiin haddaynu sida Mareykanka ka dhignana 740 culamo kale waxay qabaan oo leeyihiin dhulka la islaaxin karo ee dhul beereed laga dhigi karo wixii uu waqtiga dadka quudinaya xisaayaadkan markay soo saarayeen mala 5 bilyan meelahaas uu dadku ahaa 10 adcaafiha buu quudin karaa that means waa tiradii uu tilmaamayay wax ku dhow 50 bilyan oo waliba mustawayaadka sare markay wax u cunayaan bay leeyihiin wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay افتراضات علمية وكلا جرو أورانيا ولا زيادين كرا مساحة الدولك أي قابل للزراعة ويمكن 6.5 ولا جز زيادين كرا وضعف لبلا بلا جارسين كرا هدي واحد تشرون في عن الله بيرنا وحي جهدي كرتابو تلمامية 36 بليون بني آدم إلا قودين كرا قولك كلا علماء ذا كم يدي واحد تلمامية ورلا بقول يلبي 7 بليون وكفلين هي يستوعب ويطعم ويكفي بيليه وقاضى يردلكو وانا قودين كرا وانا كفلين هي شكل هذا نوت المامنو وهلين ورد البيرات كما ما هدا تكنولوجي جوه هرمري بني ادمكو مركز طبا هرتب ابارها هي غاچادو casriga hadda la joogo kuwii ka horeeya ka abaariya gaajo badnaan jiray marka abaariya gaajo la tilmaamo bay leeyihiin ee bini aadamkuna bidca malaayiin waa ay kaga badnayd laakiin nadariyaha maalta suxanay u shaqeyneen bay leeyihiin hadda xataa technology-gu wuxuu gaadhay in wax la beeri karo iyadoo dhulba lagu ridin imka waxa ogtiin
in loo beeri karo biyo iyo chemical quroo la isku daro geedka inta hoosta loo geliyo biyo chemical qura inuu bixi karo aan dhulba lagu ridin oo wadannada qaar hadda wax ku beeraan idan futuuxaadka cilmiga ee ilaahay bini aadamku markay tiradiisu iyo korodhaba futuuxaadka alla u fura waa tiro badan yihiin waagii hore inta hektarka laga soo saari jiray ama hal hektar oo dhul intuu quudin jiray imka waxaa laga yaabaa 10 laabkeed iyo 20 laabkeedba inuu quudin karo hadda farsamooyinka cusub ee technology-ga marka la isticmaalo waxay leeyihiin biyaha wax lagu beerayo mid engineer wuxuu leeyahay waxaabay la mid tahay waa ka radaaca sinaaciya buu leeyahay soo hooyadu markay ilmaha dhasho haddaan naaskaba la nuujinay waxaan la walwalaaqa la siiyo dee iska noolaan karaa waa saasoo kale buu leeyahay haddayna dhulkaba wax ku ridina biyaheena iyo chemicalka iskaga ridanno waa la beeri karaa buu leeyahay waa soo bixi karaan sida radaacada sinaaciga oo kale u noqon karaa maxaan weedhaha kan u soo naqlinaya u tilmaamaya waxaan u tilmaamayaa aragtidan tashaa'umiga ee quusta bini aadamka ku ridaysa odhanaysa dadkii baa tiro bato cunnadaa yaraanayso dunidu way madhanaysaa waxba kama jiraan dadkaa tiro batay dhulkuna waa ku filan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii iyo idaaradii iyo xooggii lagu maamulan lahaa adduunka ee wax lagaga soo bixi lahaa haddaba gaajada jirtee dunida dul taalla waynu ka mid nahay waxay ku timaadaa bay leeyihin suuء الtasaruf wa tadaalum maamul xumo iyo dulmi bini aadamku isdulminayaa ah sabab اlmajaaca bay leeyihin si kale haddaan u dhigna bay leeyihin alathra greediness hunguri weyni iyo cadaalad xumo iyo takaaful la'aan cadamu takaamul bini aadamku inuu isdheelitiro takaafulo aanu jirin iyo mawaaridda la haysto si xun loo isticmaalayo wixii la haystay oo si xun loo isticmaalayo ayaa ah bay leeyihiin asbaabi nudra ee ma aha nudro xaqiiqiyo jirta maaha gaajada iyo baahida jirta kuwan baa sababaye may sababin wax la'aan dhulka korkiisa saarani haddaba waxaan leenahay mafhuumkan la yidhaahdo alamni alghadaa'i haddaynu usoo gudubno in si nabada loo helo wax la cuno waa mafhuum qadiim oo bini aadamku weligiiba uu ka fakerayay imikana shuruux cusub oo xadiida yeeshay ummad kastaa inay tijaabiso isku filaanshiiyo waxay liqaysaa iyadoo la soo baxdo kayd yeelata cunneed waa wax bini aadamka meel kasta uu ku nool yahay baa looga baahan yahay inkastoo iminka jaa'ixadan karoonahee dunida ku soo korodhay ay dhibaato cusub soo kordhisay bolisiga dunida yaala siyaasatul qamx ku saabsan cunnada ku saabsanna waa bolisi isticmaariya oo Kissinger العرابي الأمريكي سياسة الخارجية الأمريكية يهودي جدا شيء أركتدي سواها كم ده هيدا وأركيي دول كشدال كهستي وحكنا هذا إنرجي دوني ده قبصة بولاي هاي إننا قلنا وحنو باهنا هنا قبصنا بولاي عند الدوني ده يبين هذا نكون حلقيه سأنو كنترولي كرنو فعلا فقيه استراتيجي عبد الله النفيسي marka uu ka waramayo afarta awoodood ay dunida ku maamulaan nimanka maanta dunida uu burtuurka ah maamula waxa weeyaan buu leeyahay kow waa siyaasada الخامات oo ah waxa lagu tilmaamo ugu weyn khamaadka la sheegay raw materialka oo ugu weyn yahay buu leeyahay shidaalka iyo sareenka labadaas ay gacanta ku hayaan buu leeyahay shidaalka dunida iyaga soo saara iyaga suuq geeya iyaga iib geeya qoladan dhulkooda laga soo saara waxay cunaan baa laga siiya iyaga haysta iyaga leh waxay kale leeyihiin cunada dunida sareenkana iyaga gacanta ku idinku waxba beerina la yiri haday beerana suuqa laga saara annaga idin siirina wixii cuni lahaydeen annaga idin ka iibinayna markaanu doonana annaga ku cuno qabataynayna oo ka joojinayna ilaa intaad baqtiyayso ama aad warkayga u hogaansanaanayso saddex shay oo kale uu tilmaamaya markaas oo hubku ka mid yahay
oo majlis al-amni iyo waxaan United Nations ka la sheegaya ka mid tahay oo ka mid yahay maxay athaqaafa jaamacaadka iyo cilmiga iyo aqoonta iyo technology iyo media iyo wax daba socda isku soo duuduub waxaan leenahay maanta al-amn al-qawmi ee ummada ay leedahay al-amn al-ghadaa'i wa qadiya istiraatiijiya waa arrin aan kaftanka gelin waa arrin ummad waliba inay si xooggan uga fakarto ay taagan tahay in dunida wax soo saarkeeda bay yidhaahdaan khayraadkeeda dabiiciga ee bini aadamku soo saaray dunida yaalla boqolkiiba 80 waxa bini aadamku soo saaro boqolkiiba 20 bini aadam ka mid ah cuna inta kale waa la gaajaysiiyaa boqolkiiba dhowr iyo 20 milyanna 25 milyan wax ka badanina gaajay u dhintaan bay dhahaan sida markan waxay yidhaahdaan khayraadka waddanku uu leeyahay boqolkiiba 5 baa gacanta ku haya waxaan filayaa waliba ihsaayaadkan inay qadiim yihiin inay hadda ka yartay boqolkiiba 90 in ka badanina yani boqolkiiba 90 khayraadkii waddanka 5 baa haysata markaynu soo dhaafno ihsaayaadka iyo wararkaas oo dhan dunida qadiyada cunnadu waa jawic kalbak yatbacuk eygaaga gaajisay bay yidhaahdaan ha ku dabagale eygu hadduu dhargada iskaga ka tegaya laakiin haddaad u siido salada wuxuu ugu jiraanoo kolbaad wax u tuurayso oo ku daba soconaya ha hiya siyaasa raashinkee dunida maanta taalla waa shucuubta in la gaajaysiiyo si ay u hoggaansanaato gaajadu sideedabana inxiraafaad tiro badan baa ka dhasha qalooc badan bay wadataa oo nabigu muxuu ku tilmaamay kufrigu faqrigu inuu kufri noqdaa buu ku dhow yahay walidalik inxiraafaat bulsheed oo ijtimaaciya ka dhasha bal dawladaha waa loo taliyaa oo kuwa yidhahda man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara qofkaan wuxuu cuno isagu haysani go-aankiisa male bay yidhaahdaan go-aanka cidda wax ku siisaa leh waxay tilmaamaan gaajada iyo faqrigu hadduu tiro bato ijraamkaa tiro bata nabaddaa la waayaa tuugadaa badata ammaana xudanaabadaa badata akhlaaq xumadoo dhan baa bata crimekaa bata waxaan oo dhammi waxay la socdaan waxaa ka mid a waxyaabaha buunbuuniya gaajada bal dadyaga qaarkood waxay ku kalifaanba inxiraaf caqadiya oo gaalkoo waxaystana markuu arkayo muslimkoo gaajo ku madhay dee waxaa is odhanaya war mala xaggaasaaba saxu jira xaggaasaaba barakadu taallaa iyo dadkii wax lagu haystay mushkiladda gaajadu bay yidhaahdaan ama insaanka sidiisaba bini aadamka mashaakilkiisu bay yidhaahdaan isagaa jaaniya isagaana daxiya waabay yidhaahdaan dhibbane iyo dhibba ka dhibta geysanayaana waa isaga kay dhibtu ku dambaynaysaana waa isla isaga bay tidhaahaan haddaba mashaakilka dunida yaalee cunnada ku saabsani waa mashkila falsafiya ku saabsan qaabka wax loo maamulo ku saabsan qaabka wax loo qaybsado ma aha mashkilad asal ay u tahay mawaaridda oo yar waxay yidhaahdaan baa caalam alcarabi ama caalam alislaami in badanoo ka midana 3 shay ayaaba ugu muhiimsan bay yidhaahdaan nuqsaanta haysata midi waa naqsulintaaj wax soo saar yarida dadkoo iska fadhfadhiyo aan rabin inay wax soo saaraan ka labaadna waxay yidhaahdaan waa inta wixii la soo saarayna faaqidkaa badan inta luntaa badan bay yidhaahdaan oo farsamada ama loo istoodhgareeyo ama loo kaydiyo ama loo ilaaliyo ama baan jirin haddaynu sanadkan tamaandho waddanka ay hargeysa si fiican uga baxdo waa 2 bilood uun inta la cunayaa ee ugu badan wixii ka dambeeya waa in quruntay iyo in la tuuray iyo in qaabka loo soo rarayo markaa iyo qaabka loo istoodhgareeyo waddanka dhammi ma laha meel wax lagu istoodhgareeyo meel cunno lagu istoodhgareeyaba ma lihin waddankoo dhammi meel cunno lagu istoodhgareeyo ma lihin oo saalix u ah bakhaarka un bariiska engegan lagu gura baynu haysanaa
idan meel loogu talagalay waa cunno bini aadam in lagu stoor gareeyo ma lihin saa daraaddeed waxay leeyihin wax soo saarkooda 15 ilaa iyo 23 ayaa waxay ku lumaan systemkaasi wax soo saarka waddanku uu sameeyo boqolkiiba 15 ilaa 23 in loo gaadhaya waxay ku lumaan maxay system xumida qaybta labaadna waxay dhahaan waa hidaarka waa dadku siday u daadiyaan wax cunnada la qubo ama tan dusha la iska saaree tirada badan leh cunaan aad u baahnayn haddaad cunto dee waad qubtay dunida waxay yidhaahdaan dad saddexdii qof ee dunida ku noolba mid baa suu taqdiya haysataa bay yidhaahdaan saddex qof oo kastoo dunida korkiisa maraya mid baa cunno xumo haysataa midkan aynu sheegayna cunno xumadu haysato waa labada daraf bay yidhaahdeen midna way ku yaraatay dabeetana wuu u bukaa midna way ku badatay dabeetana wuu u bukaa labadubana way bukaan waa boqolkiiba 30 bini aadamka dhulka kor saaran bay leeyihiin baa suu taqdiya haysataa suu taqdiya haysta waa maxay midna waxaan caafimaad qabin ama aan fiicnayn ama buu isku badiyo cunay dabeetana dhiikar iyo cholesterol iyo sukorow iyo dhagax iyo baliya baas baa galay iyo samna baruur oo waxa la yidhi hadhowna boodbood oo lacag kala bixi oo iska rig inta ku saaran midna gaaj ah haysata idan waxa yaallaa bay leeyihiin saddexda ugu daran ee caalamka saddexaad aynu ka mid nahay yaalla waa imaa inuu marka horeba wax soo saarku liito dadku aanay wax soo saarayn ama inta ka lumaysa wixii ay soo saareen inay tiro badantay ama inta muhadarka ee ihdaarka lagu sameeyey la lumiyey ee noocyadka kale aynu sheegayno loo lumiyey ama qaabka loo isticmaalayo aanu ahayn qaab saxa midalan caalamka carbeed bay yidhaahdaan boqolkiiba 60 biyaha isticmaalaan waa muhadar bay leeyihiin waa si aan caadi ahayn baa loo isticmaalay waa si ka yar baa loo isticmaali kari lahaa saa awgeed waxaan leenahay dunida wax la'aani ma taalo markastoo aadanuhu uu soo bataba ilaahay cilmi u furay mar bay dunidu dhir shidanaysay inagu weli halkaasaynu taagannahay enerjigeenu inuu weli dhiriyey ummadina ma horumarto horumar ummad kama suurtagal aha laba shay oo la helo mooyaane biyo iyo nal inay ka dheregto energy ummaddii aan energy haysan horumar kama suurtagal aha weligeen baa aynu suu khudbadayso akhrinoo sheekayno waxaynu cabnaynu laanay xaggaynu ka horumarraa waxaynu shidannaa ama energy aynu isticmaalana waa la'nay laa gaas walaa laydh walaa waxba toona weli geedkii baynu gubaynaa shidaynaa horumar iyada daa markaa casrulxajari baad nooshay wakhtigii dhagaxa waxay yidhaahdaan aadanuhu noloshiisu waxay u tatawurtay tiradu markuu yaraayo koowaad geed buu shidi jiray bay yidhaahdeen oo ku noolaa kadib buu ka soo gudbay steam buu yimi albukhaar markuu maraakiibta iyo waxa kan iyo steamka lagu kaxayn jiray bukhaarka la isticmaali jiray kadib buu ka soo gudbay wuxuu yimi alfaxmi alxajari dhuxushii la soo qodanayay dhagaxa ahayd dhuxul dhagaxdii la soo qodayay oo dhulka hoostiisa laga soo qodayay kadib buu ka soo gudbay dabeetana shidaal buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana gaas buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana taaqa sinaaciya daaqada la abuuro buu samaystay sida nuclear energy iyo chemical energy waxyaabaha kan kadib buu ka soo gudbay dabeetana wuxuu yimi daaqada aan nuduubku ku dhicin tan cadceedda iyo dabaysha iyo badda karansigeeda iyo laga dhaliyo kuwaasi ma go'aan dee cadceeddu markay dhammaato dee dunidaa dhammaanaysaa idan dunidu waxay leeyihiin mar kasta oo aadanuhu soo bataba ilaahay futuux cilmiyo cusub buu u furayey taasina waxay sababaysay inay noloshoodu kor u socoto tiro badnidu inaanay nolosha dib u yaraynine inay ahaato mar kasta tiro badnidu wax fiicnaysiinaya dunida oo ay nolosha kor u socoto laakiin inagu dee weli waxaynu taaganay maxay alcasri nabaati xataa casri alxajari maynan soo gaadhin casrigii nabaadka geedka la shidayey mushkilat alqadaa waa mushkila taariikhiya waxaana laga yaabaa inay ka mid tahay waxyaabihii dagaallo badan oo dunida ka dhacay dagaallo dhaqaalay ahaayeen ama siraac tabaqiya ixtikaarkan caalamiga ee cunnada lagu samaynayey isticmaalkii dunida gumaystay wax badani
إلهي قرآن كوحنا لي وفي السماء رزقكم وما توعدون إلهي وابلغ هذا أرزاق ده ضمان الرزق قرآن يا حديث توحنا المامي من الله إلا قبل قاضي لكن معناه هذا ما التواكل معناه هذا ما اسكفر فريست أرزاق ده ويمان إسايه ما لك قرآن تيمجرته هذا اللي يدرس كفر فري أرزاق ده هلا إساني ما لك قرآن تيمجرته وحلا ينيري من أحيا أرضا ميتة فهي له دول دنتي قفك النولية وحكا بيرا وحكا صوصارا إننا قلنا إنتي نبنانا دي إلهي ودن وغارني أي إنه حتى نفكي داقي يوديدني وحنا كما صوصارنا شرعيا ماد ملكنين ولي قابل دير كوريتش يوداني قاسكاله دير نفلو معنا سمين أيو مشاكل كي لا مركا وحيهي وحو قرآن كوينات المامية فساد انت لا فسادية أما درتا أما حولها أما نلاشا أما وحكاني ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أهلا وحنا بقينات المامية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قفك مسلم كاي وحما بيره قيد متاقو أما الزرع مردولك كمرده وابن آدم معونه أما حولبا معنان أما عدؤون معنتبو نبقو ليه إلا هي الصدقات بيوتي waxaa si waa dhiirigelin la dhiirigelinayo qofka muslimka ah inuu wax beero bal waxaa kuugu filan xadiidkii uu nabigu yidhi in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila haddii qiyaamuhu xaggaa ka soo sanqadho uu dhaco oo gacanta aad ku hayso geed timireed la abqaali karo fa in istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisaha haddaad awooddo qiyaamaha inaad ka gaadhsiin karto xabaddaas geedkaa yar inaad beerto بير بو نبي قولي لذلك بقى علماء دو حيد هدان غرسها عبادة قيت كبير استيساء عبادة ويا إنسان كبيرها يتعبد بالعمل شقدوا إلهي كعابده إلهي شقدوا وقود هذا هذا بقى أيها الأحبة درس كان يوحو كساب سيسيني إشكالية تنسيدين لو حليليه dhibtan ma laga bixi karaa odayga aqoonyahanka ee yahuudiga ee maraykan ee macruufka linguistica ee la yidhaha Nacum Chomsky anina aqoonyahana siyaasadka reer galbeedkana ragga ka soo horjeeda leftiska ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay weer caan oo la yidhaahdo laa yuujad shay ismuhu balad faqiir yuujad faqat نظام فاشل في إدارة موارد البلد ويري دوني كما تشربوا يري دول يرا هذا ودول فقير دوني ما تشربوا يري واحد شره نظام فاشل أو معموله موارده وحي بني آدم كهانتي ده هيستان نظام فاشل أو معموله بتشربوا لي لكن وضع فقير ما تشربوا لي معناه ده وحيانا آدنه قاتشده farsamo xumidiisa keentay dhulkiisu ma keenin buu leeyahay dunida kuma yaala buu leeyahay dhul aan dadkiisu aanay wax cuni karin laakiin systemkay u nool yihiin ayaa ka dhibta jira anu kama warramayo qadiyada tan technically de ka culimada ku takhasustay inooga warrami beeraha iyo saa wax loo beertay iyo saa culimada ku takhasusay laakiin waxaan ka warramayaa xalku تقنية هو دنبيا وحكى هالرأي ندرده وحكينا وضدكوا إن النبض عناد ويان عنكوا فلان بن آدم كوايا وحكينا سياسة ودنولية هي ثقافة هيستان انت ان لو تجين مسألة التقنية دي علم جاية فرسمة لو تجين فرسمة بن آدم كوا وحسوه هيلي كرو وانا وحلا برانكرو فرسمة كستو الدنيا ده طالة ولا برانكراه وانا لسوه هلي كراعي تقانا اما ودن كاغا قديسة كهل اما
dabadiisa ka soo waa la heli karaa laakiin mushkiladdu waxay ka jirtaa culture-ka bulshadu ay haysato iyo qaab nololeedka ay rabto inay u noolaato iyo siyaasadda maamuleed ee ku saabsan cunnada waddanka dadku siduu wuxuu cuno u heli lahaa siyaasadooda maamulkooda sare uu leeyahay marka siyaasadda maamulka sare uu leeyahay ka warramayo dad badan waxaa laga yaabaa inay dowladda markaa meesha joogta iyo mucaaradka ka soo horjeedo oo yidhaahda dowladdan wartaa kama warramayo waa iliidkeenna oo dhammi siduu rumaysan yahay ama kuwa hadda jooga ha noqdaan kuwa soo socda ha noqdaan kuwii sii tegaya ka sii baxay ha ahaadaan kuwii inoo soo bilaabay isku kee wada dar maaha kuwa hadda jooga waxaynu emphasize-ka saaraynaa waa iliidkeenna waxaynu ka warramaynaa dadka hoggaanka inoo hayay ilaahay intaynu xorribad qaadanay ilaa 60-kaagii ka soo bilow dadkii hoggaanku u hayay iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya u soo socda marka waxaan leenahay ummaddeenna hoggaanka qabatee iliidka ahi siyaasadda ay ugu talagaleen inay ummadda tani cunno ku filan ku hesho gaajo kaga baxdo iyo culture-ka dadku rumaysan yahay ayaa caqabadda koowaad ee hortaagan inaynu gaajo ka baxno marka mushkiladdu waa mushkilo insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan dhulkeenna maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo o dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo buletinada dowladdu soo saarto maalan waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019kii oo buletin dowladdu ay faafisay wixii aynu waddankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019kii ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsinoo beed ah beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd mise 87 January mid bay ahayd ayaan Jabuuti tegey dabeetana waxaan arkay Jabuutiyo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay waddankan dhan beedkii uu cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Itoobiya ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdo iman jirayoo khudaarta wax lagu karsado dhan waaga aad baan u yaabanaa ma waddan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonayaa taanigoo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan u baan ko 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu ku idhi China ma intaasoo 1 kiiloomitir bay inoo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona oo hargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mida lagaaga keeno dabad waa wax aad u cajiiba waxaan eegay إحصائيات دولة soo saartay baan eegay balqaadka hadda la inoo keeno
markaan ixsaa'iyaadkan ka warramayo kama warramayo wixii suuq madow lagu keeno kama warramayo waxaynu qiimaha intaynu dawladda been u sheegno oo aynu si kale u soo dhaafino ama wixii cashuur dhaafka aynu ku keennay ama wixii xuduudaha tirada badan leh ka soo galay waxaan ka warramayaa qaadka qure ka soo gala maxay galbeed ka soo gala ee halka lagu soo cashuuro 6 bilood ayaa waxaynu cunnay 9 milyan oo kiilo waa 6 bilood waa 9 milyan 450 kiilo oo qaada 6 months ayaa intaasoo qaada aynu cunnay oo Itoobiya laga keenay waxa meesha intaasi waa intay dawladdu cashuurtay laakiin dee xuduudda dheer waa taqaaniin ilaa halka ka soo gala qaad meel walba baadiyo dhan buu gobollada baro dhan buu tagaa meel kastuu tagaa waa Soomaali weyna kama warramayna waa intan yar aynu joogno ayaan ka warramaynaa ayaa uu soo galay 9 milyan oo kiilo 6 bilood la cunay how much ba ku baxay idan mushkiladani maaha mushkilad yar dadku say u sawirayaan ma haddaan akhriyo dhaatada halkan ku qoran ee ay dawladdu soo saartay waad cajabi lahayd dadka waxaa cunaya GDP-geenu waa imisa wax soo saarka waddankuba waa imisa 2002 World Bank iyo dawladdu waxay soo wada saareen inuu ahaa 1.4 billion wax soo saarkeenuba kuwa hadda ugu badaya waxay yidhaahdaan 2 billion laakiin masaadir waliba sources aad loo ictimaadi kara maaha laakiin World Bank iyo dawladdu kay soo wada saartay wuxuu sheegayaa intaa waxay sheegayaan ixsaa'iyaadka qaarkood cajsiga مثلا ixsaa'iyaadda hore dawladdu soo saartay deficitka ku jira tijaaradeenna waxaynu soo dhoofsanay waxaynu dhoofino 205 milyan ayaa 6 bilood gudahood deficit ku yahay almost waa 5 nus bilyan deficit aynu ku jirnaa lacag ku dhadhow say tilmaamayaan taa macnaheedu waxa weeyaan iyadoo beer capital wax soo saarkan iyo dadkeena marka loo qaybiyo waxa ku qiyaasaan qofkiiba $740 ba sanadka dhan kugu soo hagaagaya dad minis maalintii $1 ma heshid sanadku waa imsa maalmood 365 waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo ixsaa'iyaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka 3 baa inaga sii dambeeya iyana baktiyey waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi 3daas ay inaga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180aad baynu nahay waddanka 180aad dad minis 179 waddan baa inaga horeeya runtii ixsaa'iyaadkan ama dawladdu soo saartay ama World Bank soo saaray ama waxa kale soo saaray wax la akhri karaba maaha Soomaalida kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin midhaha waxay soo sistaan oo qudhay agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano مثلا boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tubaakadaynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tubaakadaynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tubaakada la keeno sokorta la keena waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tubaakada la keena waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo
ITC 2018 waxay soo saartay. أيها الأحبة iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaan aynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay waaxid min kulli halaathana suu taqdiya buu ka caban doonaa reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doonaa kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way kasii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda waddanku uu leeyahay waa mashaakil cultural ah oo dadaan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsi lintaaj wax soo saarkooda aada u yariyey intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambena aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn suluukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ha الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا لقى وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا يوحصو سار كله كردية وعبادة بيرها كان يوحل بيرية والنوع من العبادة دوقفوه تلقلو كالجر كاينو لي أما سي قلدان وحلو عنايا أما وح قلدان لعنايين وحلقا بدلنا والزهد بولي waxaan u baahnay inuu tiro badan leenaad isku gurin waxyaabaha intaajka is hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay fuqarada iyo kuwa waxaysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo waxbixin iyo takaaful ku salaysan waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane waa khabiir ninkani ka mid a khubarada waaweyn ee brofesorada waa candhiga laakiin wuxuu leeyahay systemka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa system islaamiya laakiin systemka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay salaad badan tukataan nacam haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan beriiskaa soo daadanaye kuma taallo qur-aanka kuma taallo ee wuxuu u baahan yahay adawaatul intaajkeenna inaynu wax ka bedello dadku siduu u fakerayay qaab nololeedka in wax laga bedelo wax soo saar ummad leh inaynu noqonno taasi waxay u baahan tahay buu leeyahay kow in la helo markas cilmiya oo daraasaat alamni alghidaa'i baadhitaan ku sameeya innaga aqoonta aynu baranaana maxay u badan tahay jaamacadkeenna maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh dee sheega business management maxaa businessaynaysaa gaaja u waqtihaysaan yani inay wax soo saar la xoojiyo waa mid ka labaadna waa qadiyatu takhtiit buu leeyahay mustaqbalka siyaasadda dowladda iyo ururada madaxa bannaan iyo bulsho weyntu inay yeelato khita mustaqbali oo ah dadka kani sida ay faqriga uga bixi lahaayeen innaga khitadeenna waa maxay
وهيئاتكو دنيا هالنسوق قاعدانيو سواء كان معها إن دولة إنشاؤية ها أو قلاتو إنشاؤية بدن هلا كأنه وروح حسدت كسيقات شيء بلد كل رجال لما شيءين ولا أنا عدد مالهن مرة يسوي حيوانات دنيا ودن أنت تجين رجال لما هيو فقرهم بلا سيقة هذا وكوا أفرتين فاري يدقن شرنا أنت كصوريان بولا شوا غيره يدي وحبلا يدكو سينيا قاعد هذا يبيران ولذلك هو أحدهم قريب بوك لا يرادا محي صناعة الجوع بقريب مدي بوك لا يرادا قاعد هذا سمين تيد سيدا قاعد هذا دوري الله أبو روكا والرمية إياك ما جمع إنه ده وحي ولا نيل مسيتاني وحودي بيسيتان سمعها هذا غربا هذا وين قد العناية هم قد العناية نادرك مكسوقاتي وحودي بيسيتاني وحد قاعد لا دي بيسيتو waxa u baahan inaynu fakarnaa wuxuu yahay inaynu inagu wax la soo baxno ninba wax soo qaato cunaya war maaha waxaynu u baahanay waa maxay waa inaynu inagu keena kan wax kala soo baxno inaynu takhtiid sameynaa baynu u baahanay hadda daraaso kooban lagu sameeyo fi suurati yuusuf qisatu nabiyullaahi yuusuf waa min axsani alqisasi fi alqur'aan waa qiso runtii adab leh oo cilmi leh oo akhlaaq leh oo bulsho leh oo fan kasto cilmi oo laga warramo ka warramaysa qisadaasi nabi yuusuf waxa ka mid ah riyadii ugu dambeeyay oo xabsiga ka soo saartay riyadii ugu dambeysay oo xabsiga ka soo baxay yuusuf ayuha sidiiqu aftina fi 7 baqaratin simanin yakuluhunna 7 cijafun وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون إلا يلقى قاري وفيه يعصرون قصة إلهي وحكا ورميا تخطيط يودجيي نبي الله يوسف عناصر التخطيط الاستراتيجي الغذائي دمان تدبي لهيد بيلي أو حكا ورميا سيدا وحلوك كيديو عناد الله كيتصده إيو intaajka sida loo fiicnaysiiyo iyo istihlaaga sida loo tarshiidiyo ayuu ka warramaysaa qisadu waxay ka warramaysaa 7 sanadood wax la beerto markuu fasiray oo si fiican wax loo beero dhulka waxay ka warramaysaa wixii la beertay sidii aanay u baaba'een loo kaydin lahaa ee kayd uu geli lahaa waxay ka warramaysaa waxa la cunayo istihlaaka sida loo tarshiidin lahaa si xun loogu falaadeen innaga marka caanu bataanna wala qubi jiray marka jiilaalkana wala gaajoon jiray saaka ma ahay yani waa dad wixii ay soo saareen kaydsan kari waayay farsamo garan waayay u kaydiyaan yani caanaha geela haddii halkaa la iska dhigo oo ay karuuraan oo markay karuur dhaafan kolba biyuhu laga shubo oo faarko qura la reebo faarku waa canaboode dabeetana way wadaan carabtiyo way engejiyaan aqadkay sheegaan waa ka ana geelena caadiga la daadinayay haddii inta halkaa la dhigo karuuro kolba biyaha un laga daadiyo karuurka soo hadha la faarka futkiya faarka soo hadha la wado oo la engejiyo dabeetana haama lagu cabaysto canaboode noqon lahaa hadhow biyuun baa lagu dari lahaa laakiin dadku haddii aqoontu ay baabaha noqoto documentary film baan daawaday ka warramaya neef aan dhalin oo geela oo niman carbeed caana ka maalayaan weliga ma maqashay hal abeera oo aan dhalin oo caana laga maalayo intay hasha farsameeyeen oo waaleen bay ka dhigeen inay dhashay oo dabeetana neef yar waa ka xidheen oo sankii afka farsamadii siday u wadeen waa maaleen un hashi markii dambe يعني بني آدم كو أقوانتو يسدري بني آدم سيدا أوجد نبي الله يوسف قصدي سوى حيت الماميسا سيدي وحلوك يتسن لها يا سيدي وحلو بيران لها يا استهلاكا سيدي لو إرشاد لها سفي عن بني آدم كو استعمالي لها ألم من الغذاء مركها وقضية لما مولك روح رنتي wax badan oo aan soo qoray waa hayaa laakiin waqtigu salaadii waa gaadhay waxaan rabaa inaan war ku soo koobo dunidu loo lambay ku jiraan
loolanka ay ku jirto duniduna say u noolaan lahayn bay u noolamayaan bini aadamkuna baryo kuma dhergo dowladnimana kuma dhisanto waxaynu u baahannahay bulsho ahaan culture-keenna inaynu wax ka bedello dowlad ahaanna siyaasaadkeenna oo investment iyo wax soo saar inaynu wax ka bedello wax dad dhul intaa leeg haysta oo roobu da'o oo gaajoonaya ceeb weeyaan dad dhul intaa leeg haysta oo basal iyo baradho iyo yaanyo iyo xataa quuto daruurigii kale dhaaf waxaas waxay soo dhoofsadaan la soo degaan waa ceeb runtii maaha wax laga warrami karo waan iska dhaafay wixii ku saabsanaa xisaayaadkii vegetableska iyo waxa kan ku saabsanaa ee dawladdu soo saartay oo iska daayay waayo waa ceeb ummad wax haysato baahan oo wax kastoo ay liqdo le dabadaanu ka keenaynaa xataa waxaynu cunno waxa ugu badnaan jiray canjeelo waxay maraysaa canjeelada wixii laga samaynay in dabad laga keeno waxa ugu liita dunidana aynu quud ka dhiganno daqiiq cad iyo bariis iyo baasto saddexduba suntooda ay ka badantay waxtarkooda caafimaad lahayn wax soo saarkeennii garow iyo galley iyo maxaa la yidhahdaa digir iyo wax la midana ma jiro ma soo saarno haddaynu soo saarnana dee farsamaynan u garanayn xataa bariiska waa layna baray saa loo isku dhex kariskareeyo wax cunay weligiin ma leediin garow isku dhex karisaa dunida waxaad helaysaa garow isku dhex karisaa oo hilib lagu kariyey maraq oo aanad ka go'aynin markaad cunto laakiin waynan garanaynin innagu farsamo waxaynu ka taaganay dheri inta dabka la saaro biyo lagu shubo biyahaasi markay kululaadaan wax lagu rido biyo kululun baynu wax ku ridanaa soo maaha hilib cad ku rid bariis ku rid baasta ku rid oo biyo la kariyey waayo waa qondaro يعني soomaalida meelaha ugu faqrisan kijadooda ka mid ah bay yiraahdaan waa min afqar الناس kijadooda ay faqirtay maaha wax la cunaa inaanay oolin waa wax la sameeyaan la garanaynin waayo cidna wax lama barin marka ayuha alxiba innaga gaajayna ma haysee farsamo xumaa ina haysa aan dib u fakarno wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasallam